السلام عليكم ورحمة الله وبركاته soo dhawaada dhammaan asxaabtayda ku xiran barahayga bulshada maanta oo taariikhdu tahay 6 bisha sagaalaad 2024 waxa aan safar gaaban oo dalxiis aan ku aadnay koonfurta magaalada Kismaayo safarkanaga waxa uu daarnaa inaan caano geelo fresh soo cabno soo hilba cunno hilba idaad oo si heer sare ah loo farsameeyay iyo inaan ku soo indha duugsano cagaarka iyo dooga iyo aaranka ka jira duleedka magaalada ama baadiyaha magaalada intii aan soo soconay waxa aan soo marnay xoolaha kala duwan looda geela iyo ariga hadda arigaas ayaa idin muuqda sidoo kale waxaad aragtiin loodaas waa weyle weeye waa ilmihii looda inkastoo looda aysan ahayn ugu dambeynna waxa aan imaanay xeradii geela halkan weeye mid ka mid ah ahdaaftanadii safarkeena inaan geelaas ka soo caana cabno energii baa diyaarsan halihii baa lagu soo deyn rabaa dhawaan waa kuwaana geeli waa kana xeradiisa wataa ayagana fog tahay tababar yar kadibna waa la train gareeyay marka waa aniga caanaha geela lisaya ama duugayo ninka odaga ah ee wax lisaayo waa odagii shaati cadda ahaa waa tababar kadib waa lisayaa aan ka soo xogaa aan is yara ruxayo markii dambana caanihi ayaan mid u cabnay ayaa u cabnay caanaha dhakalka buuxa ayaa la cabayaa kadibna si wada jir ah ayaan u wadaagnay Soomaalidu waatan ay ku mahmaahi jirtay hadal lama wadaagee caano ayaa la wadaagaa maanta maasha Allah caano dhay ah caano markaa la lisay caano fresh ah caano hashi laga lisay aan arkaynay oo ninka odaga oo kiyaalaha u dhiganayo anaa wax ka soo lisayba marka waa muhiim in maalmaha qaar aad baadiyaha u baxdo si aad entertainment ugu soo qaadato marka waa iska caano cabayna waa anaga wadaagayno inta dabadeed marka waxaan jeclaystay inaan idin la wadaago ahmiyadda uu geelu leeyahay wadankeena waxa uu kaalinta koobaad kaga jiraa adduunka oo dhan marka la fiiriyo tirada geela ee ku nool dalkeena waxa ku nool dalkeena wax ka badan 7 milyan oo neef oo geel ah waana tharwa xayawaaniya ilaahay nagu manaystay alxamdulillah waxaan ku cabirnaa geela waxyaabaha muhiimka noo ah sida dalkeena oo kale tusaale ahaan hashi maandeeq waxaa laga wadaa dalkeeni gobonimo doonkii markii heesaha ama gabayada loo tirinayay hasha aan goobaye geed walba u taagmay miyahayd ishak geestan istaagaba hashaan gudub u raadgoyni gaaray hashaan leeyahay u garab roori waa gayigeena maqan gaalku maamulan buu yiri ninkii gabayay marka waxyaabaha muhiimka ah ayaan ku cabirnaa geela jaceelka lagu cabiraa magta lagu cabiraa waxyaabo badan yani ahmiyad aad u weyn buu geelu u noo leeyahay mahmahayo iyo suugaan aad u tira badan suugaan badan ayay ku cabirtay Soomaalidu geela mahmahayo ayaa laga sameeyay gabayo heeso geeraaro ayaa laga sameeyay saar yani suugaan aad u tira badan mahmahayo Soomaalida waxaa kamid ah ninka laxaha dhowrayo dhaqasho waa geel waxaa kaloo kamid ah geel xoolo kuma jiro yani geel xoolo kuma jiro waxaa laga wadaa xoolaha kale oo dhan ayuu ka qiimo badan yahay geelu sidoo kale abwaankii weynaa ee Cabdigalayax waxaan filayaa Cabdigalayax waxaa lagu tilmaamaa ninka Soomaali ugu geela jeclaa mar uu tilmaamaya caanaha geela iyo muhiimadda ay leeyihiin waxaa kamid ah tuducyada gabigiisi dheeraa waxaa kamid ah caanaha qiyaas laga lisiyo qoranka ruurkeeda yani qiyaas iyo qoranba waa laba halaad magacyadoodu ka wada abwaanku ayuunba quraac iyo cashaba lagu qaboobaaye qashin weeye soortii kalood quud ka dhigataaye soortii kale wuxuu ka wadaa wixii ka soo haray caano geel oo dhan yani soor markaan wuxuu ka wadaa baasto iyo bariis iyo alla wixii ka soo haray caano geel oo dhan qashin waayu ku leeyahay qandhiya kulayl laguma oga qabato meel baase qandhiya kulayl laguma oga qabato meel baase qabsin iyo calooshoo dhan bay qaras u diidaane sidoo kale geelu Soomaalidu waxay u ku cabiraan suugaan kale waxay ahayd ayaga oo tilmaamayo geela inuu yahay gaadiid yani suugaan kale waxaan malaynayaa hees inay tahay waxay ku cabiraan geelu inuu yahay gaadiid oo waxa kamid ah suugaantaas
marka ay diraacdii dadku wada hayaamaan duudweynow ratigiibaad aqalkoo la duubiyo haamaha dul saartaa culays kuma dakaamo mana diida socodkoo guurahana ma daayo yani guura waxaa la socodka habeenkii yani wuxuu ka wadaa ratiga markii alaabto dhan aad saarato yani aqalkoo la duubiyo haamaha dul saartaa yani wax alla wixii ku yaala gurigoo dhan ayaa dul saaranaysaa ratiga haye kadibna wuxuu ku leeyahay socodku ma dakaamo oo kaama dheelinayo يعني وحاوي علاس نما دريماyo oo waxaa ii sheeg waxaan waa ku culisiin ma garanayo guurahana ma daayo oo habeenkii dhan buu ku soconayaa marka Soomaalidu saas ayuu geela muhiim noogu leeyahay marka waxaan leeyahay ninka laxaha dhowrayo dhaqasho waa geel ugu dambeyn waxa weeye waan soo hilba cunay hilibkii markaan soo cunay kadibna tiimkan ayaa meesha imaaday tiimkan waxaan filayaa bahalka inaad garanaysiin halkaas raqas bahalku soo raacay laxaa lagu cunay marra muuqaalka inaan idinla wadaago marka baashaal iyo maxaa la dhihi jiray hal maalin oo dhan ayaa halkaas aan soo joognay cagaarkaas iyo doogaas xayawaankan maxaad u taqaanaa aniga waxaan u aqaanaa ii sheegay waxa loo yaqaano quluble ama cantalaa marka wassalaamu calaykum waraxmatullah